السلام عليكم كلتي wanaagsan aad iyo aad ayaan ugu xumahay labadii cisho ugu dambeysay wax muuqaal ah inaan halkan idin kula wadaagin safar aan ku jiray darteed magaalada muqdisho kuleel ah ayaan imid sidaas oo kalena hargab uu markaasi ugu soo dhaweeyay si walba haatee xaaladda gobolka bariga dhexe maalinka ka dambeysa waa ay sii xumaanaysaa maanta waa maalinkii 11aad dagaalkaas uu socdo waxaan la soconnaa in maalinkii daraad ahaa in la magacaabay hogaamiye cusub waddankaas Iran arrinkaas oo run ahaantii dhul gariir weyn ku noqotay Washington iyo sidaas oo kale Tel Aviv Washington iyo Tel Aviv yani markii dagaalkan ay bilaabayeen istiraatiijiyad waxay aaminsanaayeen in Ali Khamenei inuu yahay nin aad u adag oo heshiiska wada hadallada arrimaha nuclearka gantaalada ninka la mari laasay in isaga uu yahay haddii isagana la iska leexiyana arrinkaas oo dhan ay soo gabagaboobi doonto laakiin wax aysan filayn ay hadda la kulmayaan waa Israa'iil iyo Washington hogaamiye cusub ayaa la magacaabay arrinkaas oo run ahaantii oo faarkii Netanyahu iyo sidaas oo kale Donald Trump qaracan weyn ku abuurtay dhanka kale Mareykanka gaar ahaan Donald Trump labadii cisho ugu dambeeyay wuxuu ku soo celcelinayay in aysan marnaba aqbali doonin hogaamiye cusub oo waddankaas Iran loo magacaabo oo iyaga ay doonayaan qof iyaga kabaqaad u ah inay keensadaan waddankaas Iran marka xaaladda gobolka oo dhan dabka waa uu sii qabsanaya Iran waxay horey wacd ugu martay gobolka inay nabadgelin doonto haddii wadamada khaliijka iyagana nabad laga helo arrinkii waa ay dhici weysay oo Iran waxay leedahay wadamada khaliijka weerar ayaa laga soo qaadaya labadii habeen ugu dambeysay dad goob joogayaal oo waliba Soomaali ay ku jiraan Bahrain waxay sheegeen in yani ay noqotay goob dagaal oo ugu daran ay Iiraaniyiinta ay duqeynayaan sidaasi oo kale Imaaraadka oo habeen iyo maalinba diyaaradaha drone-iska hooy ay ka dhiganayaan marka run ahaantii tahliisha guud ahaanba Tehran gobolka ay u qaybinayso aad ay u sii xumaanaysaa dhanka kale Iran waxa ay sheegtay in hadda gantaalada ay adeegsanayso oo ay u qaybinayso guud ahaanba gobolka ay yihiin yani kuwa kooban oo tankooda waxyaabaha qarxa ay kooban yihiin gaar ahaan gantaalada clusterka ah yani meesha qaraxyada ay ku dhacaan ay aad u kooban yihiin waxay sheegeen ilaalada kacaanka waddankaas Iran in tilaabo ka duwan ay hadda iyo wixii ka dambeeyay maalmaha soo socday ay adeegsan doonaan oo ay ka mid tahay sida khubarada ay aaminsan yihiin gantaalada looga soo waariday waddankaas Ruushka inay adeegsadaan kuwaas oo qaraxyadooda iyo saameyntooda aad ay u xoogan yihiin marka run ahaantii Washington iyo Tel Aviv cabsi xoogan ayaa hadda sii gelaysa gaar ahaan Israa'iil 11kan cisho dagaalka uu socdo waxaa soo gaaray burbur dagaalkii 12 cisho ka weyn sidaas oo kalena waxaa la soo warinaya sida wararka hoose ay sheegayaan saraakiil iyo dad badan oo shacabka gumaystaha Israa'iil inay ku geeriyoodeen gobolka oo dhan dagaalkan waa uu sii saameynaya maanta oo yani maalinkii labaad Muqdisho aan joogo waxaan dareemayaa shidaalkii in yani kor u qacay oo ganacsatada Soomaaliyeed iyagana ay leeyihiin waxa la xiray marinka Hormuz marka guud ahaanba gobolka maalinka ka dambeysa dabkan waa uu sii qaban doonaa haddaba goor dhaweyd wasiirka arrimaha dibadda waddankaasi Iran Abbas Araghchi ayaa warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in ay tahay goor hore in faalan laga bixiyo hogaamiyaha cusub ee waddankaasi Iran ee la magacaabay arrinkaas oo markaas uu ku durayo madaxweyne Donald Trump oo labadii cisho ay sidaas oo kale Israa'iil yani ku tooqayay in ay dili doonaan ama ay qaarijin doonaan hogaamiyaha cusub waddankaasi Iran sidaas kale wuxuu yiri dagaalku waa sii fidi doona oo gaari doona dhammaan gobolka oo dhan taasna waa cawaaqib weerarka Mareykanka uu sababay inaga mas'uuliyadeeda ma lihin cawaaqibtaas waxa leh in gobolka dagaalka uu ku sii baaho yani xasaradan dagaalka ay gaarto meel aan waliba dagaalku wali uusan gaarin waxa mas'uuliyadeeda qaadi doona madaxweynaha Donald Trump ee Mareykanka Donald Trump Abbas Araghchi sidaas kale waxa uu yiri Mareykanka waxa uu noo ballan qaaday intii wada hadallada ay socdeen in weerar dalkeen aan lagu qaadin laakiin hadda waxa muuqata mar walba Mareykanka ballankii ahdigii uu ka baxayo Mareykanka Israa'iil waxay u maleynayeen ayuu yiri in 2 maalmood gudahooda ay ku bedeli doonaan nidaamka oo ay gaari karaan guul degdeg oo buuxda balse waa ay ku fashilmeen ayuu leeyahay sida Abbas Araghchi hadalkiisa laga dareemayo ama qubarada wararka aadka u falanqeeya arrimaha militariga waxay leeyihiin Mareykanka waxay filayeen 2 cisho oo kaliya in nidaamka waddankaas Iran uu ku burburi doono haddii hogaamiyaha ugu sareeya Ali Khamenei la dilo yani in guud ahaanba wasiirada oo dhan ay kala yaaci doonaan arrinkiina ma dhicin oo hadda nidaamkii dib ayuu isku soo urursanayaa waxayna u dhaqaaqayaan in Israa'iil iyo guud ahaanba gobolka dagaalka uu ku sii baaho iyadoo aan la socon ciidamada Mareykanka ay ugu geeriyoonay dagaalka Mareykanka hadda uu sheeganayo ilaa iyo 7 kamid ah laakiin tiradaasi
ay ka badnaan karto sidaasoo kale cabaas araqji waxa uu yidhi qorshaha maraykanka israa'iil guud ahaanba waa uu fashilmay haddana waxay isku dayayaan qorshayaal kale oo dhammaantoodna waa ay fashilmi doonaan oo ballan iyo axdi ayaan ku gali doonaa dhowrkii qorshe ugu dambeeyey maalmihii ugu dambeeyey gaar ahaan kurdiyiinta in loo soo dhaqaajiyo dhanka iiraan ay ku fashilmeen sidaasoo kale kooxaha kale oo gudaha waddankaas iiraan ku nool ay isku dayeen in yacni waddankaas rabshada ay ka abuuraan iyadana waa aan fashilin doonaa ayuu leeyahay annaga ma beegsana ayuu yidhi dad rayid ah ama goob dad rayid ay ku nool yihiin halka maraykanka si ulo kaca ay u beegsanayaan dugsiyadeena ama iskuuladeenna iyo kaabayaasheena dhaqaalaha marka cabaas araqji hadalkiisa waxaa laga dareemayaa kamaa tudiina tudaan intii aad nagu samayseen oo kale ayaan idinku samayn doonaa marka run ahaantii xaaladan gobolka bariga dhexe maalinba maalinka ka dambaysa aad ayay usii xumaanaysaa maraykankana hadda ayuu waxa uu ogaaday in oofaarkii netanyahu ahaa dhiiqa lugaha uu u geliyey inkastoo meel uu ugu baxo ilaa ay hadda uu la'yahay ma jeceshahay barashada qur'aanka kariimka iyo culuumtiisa hab casriga online adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqada haddaba dugsiga casriga ah ee Maka Islamic Online waxaad ka baran kartaa qur'aanka kariimka higaada luqadda carabiga iyo culuumta shariicada isqoristu way socotaa fadlan hore u gaadh wixii faahfaahina nagala soo xiriir +252 ku soo dhawaada Dere Suits Dere Suits waa dhismo si casri ah loo dhisay Dere Suits waxaa ka heli kartaa apartment firaashan iyo kuwa firaaqa ah oo aad adiga alaabtaada soo dhigan karto sidaas oo kale qaar ka mid ah apartmentyadani waxay leeyihiin double masters room Dere Suits waxay awood u leedahay inaad iibsato ama aad kiraysato haddaba dadka iibsada ama kuwa kiraysanaya waxaa loogu talagalay adeegyo si lacag la'aan ay ku heli karaan sida cafe shop qolka shirarka meel caruurta ay kugu ciyaaraan oo ammaan ah mini theater qolka daabacaadaha qolka jimicsiga sauna ama xamaamka maqribiga CCTV camera ayaa guriga meel walba kaga xiran oo yaanan hilmaamin laba baarkin oo waasica ayuu leeyahay dhismahani haddaba Dere Suits waa another level apartment wuxuuna ku yaalaa wadada jayga airportka ama dhabarka dambe ee Turkish Macaarif School Expol Technico wixii faahfaahinay dheeraad ah fadlan kala xiriir lambarka WhatsApp-ka shaashada kaaga soo muuqanaya